السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada youtube channelka Axmed Caansane. waa casharanta imtixaanaha oo nagu hadlaynay blueprintiga amaba imtixaanka la geli doono exitka ardayda blueprintiga ay usoo diyaarisay wasaaradda waxbarashada. intaanan muuqaalkan waa kii saddexaad horta muuqaalkani waa kii saddexaad. waxaan horey soo dhameeyay fundamental accounting 1 iyo blueprintiga su-aalaha meesha ku qoran amaba tusmada meesha ku qoran ee loogu talagalay inaad adigu aad ka tixraacdo su-aal iyo jawaab aad meesha kasoo dhex saarato. laakiin waxaan rabaa intaanan muuqaalka saddexaad gelin inaan idin xasuusiyo muuqaalada hore kuley arday badan aad daawato wax ka faa'iiday. muuqaalkii horeeya oo kale hadda ilaa 50 arday ayuu sii marayaa ardayda oo maxaan ku dhahaa ka faa'iiday. laakiin waxaan aad la yaabay markaan eegay muuqaalka dadka daawaday siday u daawadeen boqolkiiba 55 dadka muuqaalka daawanayay waa dad oo aanan youtube ka subscribe saarin. boqolkiiba 44 waa dadka oo maxaan ku dhahaa muuqaalka subscribe saaray. marka waxa ka badan dadka aan weli muuqaal aan waxaan ka wada youtube ka subscribe saarin. marka laba shay waa muhiim inaad youtube ka aad haddii aad wax ka faa'iido haddaanad ka faa'iidin waad iska laaban oo iyadu dhib male. laakiin dadka ka faa'iidaya wax uun u soo biirinaya muuqaalada halkani inay youtube ka subscribe saaraan. sidoo kalena arrinta labaad waxa weeye inaad youtube-ka markii aad daawatid muuqaalka inaad like saarto. arrintaasina waa muhiim waayo like waxay qabanaysaa in muuqaalka dadka daawaday ee de content ka sii marayay hadday like ta saari lahaayeen waxay sahli lahayd in dad badan oo youtube-ka isticmaalaya way shirkadu muuqaalkii hor dhigto maadaama uu yahay muuqaal la interest gareynaya ama dadku xiiseynayaan oo de like la saarayo in ay dad badan oo ayagana raadinaya ee accountiga iyo waxyaabaha la midka ah inay shirkadu hor dhigto. marka labada arrimoodba waa muhiim laakiin waxaad moodaa in waxoogaa dad badan oo viewers badan oo meesha imaanaya oo ka faa'iidaya inay muuqaalkii ayagoon subscribe aan saarin ama aan like saarin in ay dib u laabanayaan waqtigay faa'iidadooda ay u dhamaato. marka intaasi waa baraarujin. haddii aanu nimaadno markaa muuqaalkeeni saddexaad iyo blueprintigeeni waxaan bilaabeynay maanta fundamental accounting 2 ayaan bilaabeynay. waxaan horey soo dhameynay fundamental accounting 1 waa kaas halkaa ayuu ku joogay cashka iyo receivables-ka sidii loo maaragtay loo ilaalinayay iyo waxa kan. marka waxaa noo xigaa fundamental accounting 2. fundamental accounting 2 halkan uu ka bilowdaa analyze record and report instructions for business utilities and identify the implication of various methods of evaluation of respect to accounts and notes receivable inventories depreciation tangible and intangible assets natural resources analysis recorded by transactions in Ethiopia in Ethiopian context. inta aad aragtid paragraphka dhan ee meesha ku qoran aad aragtid waliba ma sii socdaa talaabo eed u jeedid waxa isugu jira su'aalo aad u badan ayuu isugu jira. laakiin de wasaaraddu waxay rabtaa in ardayda ay yara siiso hintis yar ay siisto in ay tilmaan yarinaysa. laakiin su-aalihii xaggan way ku wada jiraan. su-aalihii marka meesha ku jiray waxaa ka mid ahaa oo aad diyaarinaysaa markaad xaggan soo kacdo. xaggan markaad soo kacdo markii xagga la isugu ka dhex jacburiyay ayaa haddana waxay sameeyeen contentska waad garanaysaa xaggan ciwaanka sare contentska ayaa lagu haddana lagu tusayaa oo halkay jiraan su-aalaha meesha isdhexyaacsan meesha ay jiraan aad ka heli karto su-aalaha ayuu haddana ay ku sheegayaan. kow waxay ka yidhahdeen inventories su-aalaha ka iman kara meeshan ku dhex jira waxaa kamid ah inventory-ga waad garanaysaa chapter dhan ayaa lagaga hadlaa.
inventoryga markaa su-aasha xaggay ka khusaysaa inventorygu maadaama dee badeecadu ay siyaabo badan oo evaluation loogu sameeyo ay jiraan, loo diiwaangeliyo in la diiwaangeliyo waa activity-ga amaba waxqabadka laga qabanayo inventoryga. sidoo kale in inventorygii la tiriyo oo laga warhayo, in la controlo, in la iibiyo, in lasoo iibsado, in evaluation lagu sameeyo sanadka dhammaadkiisa, in haddii la iibsan waayo oo inventorygii la iibsan waayo tusaale ahaan qiimihii ay joogeen qiimo ka hooseeyaba disline uu ku dhaco sidee loo waa sheeko dhan way inventory waxa. laakiin xaguu ka imanaya markaad tiraa su-aasha inventory ku saabsan, waxay ku leeyihiin explain and apply different inventory costing methods. su-aasha halkaasay ka imanaysaa. waxaa laga rabaa inventoryga methodskii amaba wadooyinkii loo marayay marka la xisaabinayo, taasaa lagu weydiinaya. ujeedaan malinaya taasaa lagu weydiinaya. okay, kaale hada textbook kaa tusaya jawaabtay. textbook soo kici, waxaa timaadaa contentska imo malo waan soo dhaweyneynaa. and then halka maxaa ku qoran inventories waa chapter 6. inventories chapter 6 wey. ku dul dhufo soo dhawee kan classifying inventory baa lagu qaybinayaa. sidoo kalena determining inventory quantities, waxay ka hadlaysaa how to determine the quantity of inventory, tirada inventoryga inoo yaala sidee lagu ogaadaa hadday storeka tahay iyo haddii marka taa la raba in la ogaado su-aasha laga jawaabayo. haddii adaa wax badan sii aqriya, determining ownership of goods, inventoryga lahaanshihiisa ayaa la qeexaya. tusaalehaan waad soo iibsatay, shirkadii waata sellerkii, buyerkii waa shirkadan, gaariga inuu tagay xaggana la geeyey, waxaan ka wadaa buyerka xaggan uu baxay xaggan u tagay, waa ka iibiyey ownership pass to the buyer here. buyerkii ayaa ownershipkii ayaa loo soo raaciyey oo markaa maxay leedahay waa FBO shipping point. waxay ka dhigan tahay buyer pays freight cost. freight cost waxaa la yidhaahdaa transportation cost wey. freight cost means the transportation cost. marka who is responsible for the transportation cost when the agreement is on FBO shipping point? waxaa qaadanaya the buyer, laakiin sellerku pays isaga bixinaya freight cost. freight cost isaga bixinaya. the buyer will pay the transportation cost when the agreement is FOB destination. marka intaas ku hadlaya. marka halkana sellerkii baa soo qaadaya, xaggan uu keenaya, transportation cost isaga soo bixinaya, buyerkiina markaa dambe ayuu ownership isagu la wareegaya. iska socod sharaxaad ma geli karo, inventory kama hadli karo. youtube-ka ayaad u doonaneysaan Axmed Caynsane chapter dhan oo inventory la yiraahdaa jira, halkaasaad kasoo daawan kartaa. youtube Axmed Caynsane chapterka la yiraahdo chapterka inventory la magac baxay. laakiin waxaan rabaa inaan ku tuso methodski iga jooji hadalko. methodska wana tusoo taabsiin waa identification, specific identification waa methodska qaybta ugu horeysa. kow waad iga tirsanaysaa cost flow assumption iska waa iyo kooban halkan kugu sheegay. waa kan cost flow assumption saddexdana la raacaya: first in, first out, last in, first out, average cost. mawjeeda saddexdaas methods of amaba wadooyinka lagu account gareeyo inventoryga la yiraahdo. halba lagu afreynaya. halka lagu afreynaya waa ka horeeya waa kan specific identification ayaa jira, laakiin shirkado gaar ah isticmaala. haddaad rabto sharaxaad ballaaran oo intaa ka badan waxaad u doonantaa youtube-ka Axmed Caynsane, especially waxaad u doontaa inventory casharaanta fundamental accounting 1ka chapterka isla chapterkan oo textbook-kan aan isticmaalaya casharaantan aan sharaxaya ayaad ka helaysaa. dib inoo celi. let us go back. next question taa waa fahantay. next question waxay leedahay
property, plants and equipment. intaas ayay ka hadlaysaa. waa wixii la oran jiray fixed assetka. marka taasi laga rabaa inaad wax badan ka fahanto, waayo intaas waa contentskii. tan waxayna leedahay understand the accounting for intangible assets and natural assets. halkan haddii dee bb dan aad rabta inaad ogaatid waa property, plant and equipment oo lasoo gaabiyey. taas waxbaa ku waran intangible asset and natural asset. su-aashiisa waa isku mid un. marka intangible asset iyo natural assetka ayaa la rabaa inaad markana wax badan ka fahanto. xakeen ka heli karaa equipmentigan iyo waxyaabaha natural intangible assetka, natural asset waxaas xakeen ka heli karaa. marka aad soo raacdo textbookanaadina and then xageero igu celi iisoo dhawe. xagan maxaa ku qoran plant asset, natural resource and intangible asset. chapter 10 wey. chapter 10. okay, chapter 10 waa kan soo keosay waa kan plant asset buu ka bilaabay. land improvement. read this chapter, hold the chapter. agri factories computing description, waxyaabahaas oo dhan ayaa meesha ku jira. marka adaa laga rabaa in aad akhrido. even xataa haddii aad handout haysatid lafteeda waad ka helaysaa. handoutka waad ka heli kartaa. isla chapter waa isku mid handout yaan isticmaalanaya textbook. taana ka hubo. marka intangible asset and natural resource, marka waa assetyada aan la taaban karin iyo sidoo kale natural resource waxyaabaha dabiiciga maaragtay kuwa sida gaaska oo kale, saliid oo kale, waxyaabahaas oo kale. sida loo xisaabiyaa chapterka aad marka wax dambe ku haray male. halkaana anigu waan ku tusayaa, laakiin haddaad u baahan tahay maxaa ku dhahaa waxyaabahan aan ku tusayo oo la qeexayo oo la maxaa ku dhahay sharaxaad laga bixinayo oo dee waa si intan ka ballaaran loo sharaxayo. waxaa sameynaysaa youtube-ka wixii duuban, chapterada duuban wey. waxaan duubnayn waa adiga iyo tabarta wixii duuban, laakiin youtube-kaad ka dhex raadinaysaa. chapterskan aan ku tusayo ciwaanadooda silsaan bay ugu qoran yihiin qaybaha duuban. fundamental 1 baan duubay, laakiin 2gii hal chapter baan duubay, laakiin weli ma soo gelin. current liability. current liability-ga waxaa kamid ah payroll-ka. marka Ethiopian payroll system ayaa iyadana su-aalo ka iman karaan. current Ethiopian payroll system ayay su-aalo ka iman karayaan. payroll-ka markii la yidhaahdo payroll-ku wuxuu ku dhex jiraa current liability-ga lafteeda halka ciwaanka looga dhigay ayuu ku dhex jiraa. current liability and payroll accounting. waad ujeedaa payroll accounting-kan marka la leeyahay waa systemka maraykanka kani weeye. waa systemka maraykanka. marka dee waxaad sameynaysaa explain how to account for payroll. marka payroll-kan dee wuxuu u shaqeynayaa habka maraykanku uu payroll-kiisa u ururiyo. waad ujeedaa. so marka waxaa jira chaptero oo ka hadlayay oo gaar ah Ethiopian payroll-ka si gaar ah uga hadla. kan insha Allah waan idin soo raadin. isagana waxaan soo dhigayaa telegramka groupka exit courseska aan ku qoray. kaas ayaan soo dhigi doonaa haddii la yiraahdo. marka maxaa inoo hadhay waxa la yiraahdo aan noqono. waxaa inoo hadhay oo meelahan waxyaabaha su-aalaha ku dhex jira kamid ah waxaa loo yaqaano accounting for partnership in Ethiopia. partnership in Ethiopia insha Allah kuwan dambe balcashka dambe ayaan iyagana ku sharaxaynaa. marka muuqaalka dambe intaan kulmayno bal qof walba oo muuqaalkan wax ka faa'iiday ama halka muuqaalka gadaashii u dambaysa soo gaaray isagoo sugayay in wax ka faa'iido, dhageystay in wax ka faa'iiday, ha isku dayo in muuqaalka la gareeyo si dad badan oo u gaadho. marka kule dad badan ha gaadho, cid walba shirkadu iskama hordhigayso, laakiin adiga muuqaalkan waa daawanaysaa, shirkaduna muuqaalkan wuxuu ka hadlayo way garanaysaa. so that waxay sameynaysaa markii like badan la saaro dadka waxyaabaha noocan oo kala dhigta ama raadiya ama youtube-ka inta badan ka search gareeya ayaa waxay shirkad sameynaysaa dadkaasi hordhigaysaa. marka intaasi waxa weeye muuqaalka waa inaad ku dartaa
like gareena youtube kale hadee kusoo biir haddaanad ku jirin waad mahadsantihiin.